fadlan ha ilaawin inaad subscribe saartid si aad u heshid muuqaaladeedii ugu dambeeyay. Sidoo kale ha ilaawin inaad kambalelka furatid si aad u noqotid qofka ugu horeeya oo hela muuqaaladeyda. Mahadsanid. cashirkan waxaan ku baraynaa setting up vendors vendor inaan samaysano. horta vendor maxaa la vendor waxaa la wax walbo lacag walbo oo meel aan ku bixino oo lacag walbo aan qaf siinayno ama meel aan siinayno ama shirkad ha ahaato ama dowlad ha ahaato ama ha ahaato qof shirkad ama service noo sameysay marka laga reebo shaqaalaheena lacag alaala lacag nooga baxdo meel aan siino marka laga reebo shaqaalaheena waxaa la vendorska. markaan rabno inaan sameyno vendorska waxaa tagaynaa sida hore isku ogeyn wax walbo la sameynaa waxaa laga galaa meesha maintain ama wax kaloo fudud navigation barka haddii aan fiirino vendor and margin ku qoran markaan ku dhufano navigation centerkeen waxaa kusoo baxaya vendors. haddii aan inta ku dhufano new vendor aan dhahno inta waa ka sameyn karnaa waa hab fudud. waa kana hab fudud waa inta waa ka sameyn karnaa ama sida caadiga oo aan naqaano inta waa tagi karnaa maintain haddaan tagno vendor haddaan ku dhufno isla meesha hadduu keenaa oo inta kasoo galayna labadaas meel waa laga sameyn karaa. marka for example meeshan waxaa labo shay bisa waajib ah vendor id oo xidig saaran iyo express account oo xidig saaran. vendor id number oo sameys kartaa v001 yani vdaas waxaa kasoo kaabay vendor name magaca oo la baxaa for example Al-Naim General Trading Company. sidoo kale meeshaan contact soo qoran karaa tusaale camal number mail number kala xiriirno account number waxyaabaa dhan inta dhan waa buuxsi kartaa laakiin waajib ma ahan labada shay ugu waajibsan. marka sidaa hore usoo sameynay meeshaan account expense oo 5,000 noo gashan numberkiisa yahay haddii aan fiirinano wax kale ma ahan waxaa waaye cost of goods sold. marka cost of goods sold wuu noo gashan yahay wuu noo diyaarsan yahay oo default markaa vendor default information markaa soo sameynayna cashirka kusoo sameynayna inta wax soo gashan accountkan vendor cost of goods sold default aa usoo dhignay mar walba inta soo gashid accountkaas uu kugu xiran yahay save iyo dhah. vendor labaad ii samee 002 magaca waxaa ii dhigtaa Sundus Company. isla sida camal uu ii sameysan yahay wuu igu xiran yahay yani labadan shirkad waxaa alaabaa kasoo iibsadaa alaabtaas soo gato CEB aa kasoo iibsadaa. sidoo kale vendor saddexaad jiro oo la dhahayo vendor saddexaad Muqdisho Power Supply. vendorkan kii hore oo ka duwan yahay kan waxaa waaye yani sida hore usoo sheegnay vendor waxaa la wax walbo lacag kaaga baxayso aan lahaa lacagta meel walba lacag siinaysid marka laga reebo shaqaalaha kuu shaqeeyo. marka kan ku hore ka duwan yahay ku hore alaaba kasoo iibsanayna waa sii iibinayna kan maadaama uu ka duwan yahay account expense waa isbedelaa waa bedeleynaa sababtoo nimankan anaga alaab baa kasoo iibino oo cost aan saarno oo sii iibino ma jiro waxayna siiyaan waxaa waaye adeegayna siiyaan service ay noo qabtaan. marka account oo waxayna siiyaan account ku saabsan oo expense ku xirinayo kii hore maadaama ay alaabna siinayaan cost of goods sold account expense ku xirinayay hadda ma ka bedelena. marka hadda account expense oo kuwan la xiriiro noo sameysano electricity expense noo sameysano waa sameysanayna waa ku darsanayna ama aid expense noo iskaga xiri karnaa. kun iyo 800 idhaa electricity expense taabkiisa iyo bedel expense save idhaa then close meeshan iyo bedel marka electricity expense صح save vendor afraad ii samee vendor afraad waxaa ii dhigtaa Hormuud Telecom Soomaaliya. ayaga wax kale kama qabano adeeg internet iyo adeeg oo telephone ka sameysanaa. marka maadaama adeeggaas noo sameeyaan hadda
alaaba kasoo iibinaa kasii iibina ma jirto marka akoonkan expensigaasna waa bedeleynaa typeka waa bedeleynaa maadaama oo kuwan kan loogu talagalay shirkada alaab kasoo iibisid aad sii iibinaysa ugu talagashay expensiga mid walba hadda akoon oo kan oo saameynaya nooma lahan laakiin waan sameysanaynaa tusaale camal noogu dar 5600 oo banaan tahay waxaa noogu qortaa maadaama hormuud internet ama telephone internet expense typeka ibedel expense telephone internet expense waa kaasoo ii gashan yahay save ida vendor ugu dambeeya vendor shanaad ii samee 005 for example dahabshiil bank ii samee hadda ayagana waxaa waaye adeeg service ay noo qabtaan ma noo lahan akoon cusub oo aan ku darsanayna ayagana oo service charge akoon laha ay ku darsanayna 5700 lama samaysno service charge save service charge okay vendorskay waa kaasaa way ismaysan yihiin list hadaa tago afeeriyo inta vendor no save ma dhihin kan aan laabto afarta xabo aa weli ismaysan save maanan dhihin save ida list aa tago shanta vendor aa samaystay waa kuwaana shantan vendor aa samaystay numberanta waa kuwaana weli balance maanan gelin vendorka sida loo sameeyo saas waaye cashirkeena wuxuu ku saabsanaa vendorka sida loo sameeyo intaas kusoo gabagabeynaa